ربع وانك الصنايع وحبرشو داو وحسبك الصنايع أيه حيكون وشاي بوساسو أوكي عيال كانوا محييين مع أظن سرجوا الله ورجو يا أقول يا كردالي ما هي أو تاريخ ها يا كودالي قبر قبرتها بس ها ماركا واي محا عصني ساعة عن أتصرى أنا وحبرش اللي برو صح كو محا كله قري أي محا كله عصني لعك anigoo magacayga la yiraahdo Sahro Umar Maxamed waxaan deganahay Boosaaso Shabeelle B waxaan u baahanahay ilmahaas agoonta ah waxaan ugu baahanahay ayeeydoodan ahay inay waxbarasho la ii geeyo hooy la iigu dhiso waxbarasho daawo ma u haayo dib iyo rafaadan ku soo koriyay qashin waxaan u baahanahay inay ilmahaas hooy iyo la iigu yeelo عليكم وسلامتين سلام بعد جد وحن وباهنا هاي قعل إني وصل دويو وحن قنولا هاي هذا سألنا كتيرين كام قنولا هاي دوميه سليرة حسين يوسف عثمان الحمد لله رب العالمين وحن وباهنا هاي قري وحن وباهنا هاي يتين أن هاستا يتين تاس أنا اللي قرب قطع لي عاويو caafimaadkayga lala socdo meeshan deganahay lala socdo buushi baan deganahay roobka is idilaayo habar indhaha tabcaanka ahaan ahay sawirkaygana waad ka arki doontiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin dawladda inay ma aragtay id taageerto oo haddaas alla ku diidan wax alla waxaan u baahanahay leesiyaan u baahanahay ilmahana wax lii baro waa agoon caafimaadkooda la ogaado waxaan soo galay magaalada haddaas alla ku diidin الرفادي هذا الرفادي يجوا يطين هم قحمها هاسكو وإيجا السبب waxaan leedahay Iqra Ahmed Maxamed waxaan nahay ciyaal agoon ah hooy ma haysano hooyadeena na soo korisay iyo caafimaad iyo aqoon ayaan u baahanahay gaadigantiin magaalada Shabeelle B Boosaaso Shabeelle B ayaan ka taganahay magacaygu waa Cabsuga Ibrahim Cabdi oo na degan dawalka Kaamsheele bi oo Boosaa oo na rabo waxbarasho oo wiil rajaanahay anigoo Ifraax Maxamed Usmaan Kaahiir oo ka hadlayo gaar ahaan Boosaaso kaamka Shabeelle B waxaan doonayaa inta gabadha walaashay iga dhimatay meel ay ku hooyato iyo waxbarashadeeda inaa la garab galo